Assalaamu calaykum saaxiibayaal. Maanta waxaan idinla wadaagayaa sheeko ku saabsan maareynta waqtiga. Qiyaastii 35 sano ka hor nin dhalinyaro ah oo Talyaani ah ayaa ku jiray dhibaato ay dad badani maanta qabaan, waqti yari, mashquul iyo diirad la'aan. Magaciisu waa Francisco Cirillo. Waxa uu ahaa arday ku daalay inuu wax barto. Maskaxdiisu way wareersaneed, waqti badanna waa uu lumin jiray. Francisco ma haysan qalab gaar ah, mana haysan qorshe adag. Kaliya wuxuu qabtay saacad yar oo jikada taalay, mid oo loo yaqaan Pomodoro, macnaheeduna yahay yaanyo. Wuxuu yidhi, aan isku dayo 25 daqiiqo oo keliya oo aan diiradda saaro. Marka waqtigu dhammaaday wuu nastay 5 daqiiqo oo keliya. Waqtigu wuu yaraa laakiin diiraddu way badatay. Wuxuu ogaaday in 25 daqiiqo oo run ah ay ka qiimo badan tahay 2 saacadood oo mashquul ah. Maskaxdiisu way nasatay, natiijaduse waxay noqotay mid la taaban karo. Habkani waa mid aad u fudud saaxiib, laakiin awood badan leh. Dooro shaqo, dejiso saacadda 25 daqiiqo, ka shaqee ilaa ay dhammaato, naso 5 daqiiqo, ku celi 4 jeer, kadib qaado nasasho dheer. Taas ayaan loo yaqaanaa The Pomodoro Technique. Mararka qaar, ma aha inaad hesho 10 saacadood oo firaaqo ah, ee waa inaad haysato 25 daqiiqo oo daacad ah. Bilow hal Pomodoro maanta, dabadeed mid kale. Maskaxdaadu way la qabsan doontaa, noloshaaduna way isbedeli doontaa. Waa hagaag saaxiibayaal, muuqaalkaas kooban ayaan jeclaystay inaan idinla wadaago. Haddii aad ka heshay muuqaalka like saar, sidoo kale nagu soo biir. Wassalaamu calaykum.